dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mid siyaasadaysan ku tilmaantay go'aankii dowladda Kenya ee duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi kaasi oo ku aadan duulimaadyada ku hakada Wajeer oo horay ay uga wada hadleen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay go'aankii ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi. go'aankaasi ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid siyaasadaysan hayeeshee xiriir la sameyn doono hay'adaha ay khusayso arrintan. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aad ugu xun tahay go'aanka ay gaartay dowladda Kenya ee ah in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi loo leexiyay magaalada Wajeer. talaabadaas oo ay dowladdu u aragto mid culays lagu saarayo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka qoraalka ay soo baxay. sidoo kale qoraalka ayaa lagu cadeeyay in dowladda ay u taagan tahay dhowrista sharafta iyo karaamada ummadeeda waxayna ugu baaqaysaa dowladda Kenya inay dib ugu fiirsato talaabadan culayska ku ah ganacsiga iyo isu socodka labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii habeen ka hor la soo gaarsiiyay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada qoraal lagu sheegay in 10 bishan oo shalay ahayd wixii ka bilowda la joojiyay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Kenya iyadoo duulimaadyadaasi loo weeciyay magaalada Wajeer. duulimaadyada Wajeer ayaa lagu sheegay in culays uu ku yahay shacabka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee doonaya inay u doolaan magaalada Nairobi. hore ayaa duulimaadyadan waxaa ka heshiiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kadib markii ay yeesheen wadahadal